qiso gaaban oo ku saabsan nin miskiin ah iyo taajirkii dabaqa saarnaa wixii kala qabsaday. maalin maalmaha ka mid ah, miskiin baa wuxuu marayay dabaq aad u dheer hoostiisa. kadibna nin saarnaa fooqa sare ee dabaqa ayuu ka codsaday inuu u soo dego sidii isagoo war muhiim ah u hayo. markii uu u soo dhaadhacay ee uu u yimid ayuu ku yidhi, waxaan kugu yeeray waxaan ahay miskiin, waxaan kaa codsanayaa inaad sadaqo siiso. ninkii aad ayuu ugu carooday, mase muujin. wuxuu ku yidhi, isug. markii uu fooqii kore ee uu gaaray dabaqii sare ayuu halkaa kala hadlay ee uu ku yidhi, allah ha ina siiyo ee iska tag. miskiinkii yaaban ayaa ku yidhi, oo maxaad igu sheegi weyday intii aanan dabaqa korin? markaas ayuu asagana ugu jawaabay, oo adiga waxaad wax ii weydiin weyday anigoo fooqa kor saaran. sidaas ayay dadka qaarkood markiiba u aargutaan, iyagoon kuwa kale gafku samaynin, aanan dareemin waxa keenay jawaabtooda.